intaan qaaday baan foornadii oo dabka shidmayo oo miici iyo dhuxulo ku bisil yihiin roodhiga lagu dubi jiray baan hooyada intaan isku duuduubay oon dumiyey qayb ka mid ah baan dhex dhigay oon ku daboolay buuri iyadoo cabaadayso hooy hooy hooya ile ninka la odhan jiray haaruun alkhuraasaani wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo muslima haaruun alkhuraasaani wuxuu ahaa dhallinyaro muslima qoys wanaagsan oo saalixiina dhalay qoyskaa wanaagsan ee saalixiinta ah ee dhalay aabbi iyo hooyo isqabaa dhalay si wanaagsan buu u koray masaajidku safka hore iman jiray makhribyada ka mida isagoo masaajidka u soo socdaa wuxuu arkay carruur kubad ciyaarayso masaajidkii diidanoo aan tegaynin oo niman waaweyn oo isaga ka waaweyn wuxuu is yidhi qalbigiisaa naxay oo wuxuu yidhi carruurtan walaalahaagan maad salaadda ugu yeedhido intuu tegey buu ku yidhi walaalayaal kale tukanne waxaa la yidhi sheekh dhowr daqiiqaanu ku ballanno oo 2-3 daqiiqaa noo dhimane noo yara istaag waanu ku raaciye daqiiqadihii baa la dhammeeyey waa la israacayoo masaajidkii baa la aaday waa lala tukaday maalintii labaad buu soo maray wuxuu yidhi walaalayaal ina mariya waxay idhaahdeen wax yar noo kaadi oo in yar bay ku sii dareenoo rakacadda horuu gaadhi jiray ama takbiirta hore takbiiratu ixraamku la ridan jiray imaamkee wuu ka daahay maalintaasoo wuxuu yimid rakacaddii labaad maalintii saddexaad waxay ku yidhaahdeen sheekh inaguba jamaacaan nahaye halkan inagu tuki halkiibuu ku tukiyey ya maalintii saddexaad waxay yidhaahdeen niyow saaxiibbaan nahaye maadaa salaadda nagule horta noo yar kaadi bal ilaa maqhribkii baxay bay cisho tukadeen maalintii afraad isagaa la tashkiiliyey oo meelahay u kici jireen bay u sii qaadeen aabbihii baa raadiyey wuu garaacay salaaddii buu ku soo noqday way kala maqnaayeen muddo maalin dambaa laysa salaamo lidhi alla war cunuggii fiicnaaniyo xagguu kacay masaajidkiibuu ku noqday dhowr jeer markay dhacday taasi oo arrintaasi socota buu aabbihii dhintay oo malagii galay aabbihii baa dhintay wiilashiibuu toos ugu biiray marka isagoo wiilashii la socda yaa wuxuu yidhi waxaa lay baray khamrada waxaa lay baray daraagiska waxaa lay baray inta xun ee bani aadam cuno oo dhan baan bartay inta xaaraanee la sameeyo o dhanna waan bartay wuxuu yidhi hadda khamradaan cabbaa laakiin weli gaalnimo ma gaadhin mushrik ma noqon maalintii dambe wuxuu yidhi aniga ku kaloo meel joogna yaa la yidhi gabdhaannu magaalada inooga keenaynaa gabdhihii sidii loogu maqnaa baa waxaa la keenay buu idhi gabdha ay walaashay ku jirto markii hore waaban daroogaysnaayo maba garanaynine goortii wuxuu idhi wax walba ay dhammaadeen oo mid saaxiibka iyo xumaan walba ku sameeyey walaashay unbay soo kacday oo iyadii garatoy naxday oon arkay iyadoo sii ordaysa waan eegay mise wallaahi waa heblaayo waan ka daba kacay oo kii baan midi caloosha ku kala wareejiyey buuri kow dhiiggii islaam buu galay salaaddii wuu ka tegey khamradiina waa cabbay dhiig islaamna waa marayaa soo maaha habeenadaa ka dambeeya ramadaan baa soo galo habeenku ramadaanku dhammaaday iyadoo takbiirta la qaadayo baa anoo khamro ka soo dhargay baan gurigii hooyaday imido hooyaday baa aad intay u ciishootay bay tidhi maxoolihii hebel baa anoo nool khamre lagu cabbayaa markaasay wax meelahan igaga dhufato goortaan xanuunsaday yaan habartii yar dhardharbaaxay oo markaasaan isniyo kaalay habeen walba wayba ku haysataa maxay ku haysataa intaan qaaday baan foornadii oo dabka shidmayo oo miici iyo dhuxulo ku bisil yihiin roodhiga lagu dubi jiray baan hooyada intaan isku duuduubay oon dumiyey qayb ka mid ah baan dhex dhigay oon ku daboolay buuri iyadoo cabaadayso hooy hooy hooya ile maba garanaya buuhi ficilka aan samaynayo leanna waxaa la dadka maanta daraagiska isticmaalaayo wax bani aadama oo wuxuu cunaya ku iibsada jidhkiisa xubin ka mida dadka daraagiska isticmaalaa la arkay daraagiska dadka haddaad gaajooto maanta kolla ishaada gadan maysid haddaad gaajooto lugtaada kolla gedi maysid si walba hadday wax kuugu dhacaan kolla xubnahaaga gedi maysid laakiin ninka daraagiska isticmaalaa markay dhibaatada ku adkaato kelidiisa iyo ishiisa iyo dhegtiisaba waa iibinaya wuxuu idhi waan ku daboolay meel baan istuuray oon iska seexday muddo markaan jiifay islaantii baa loo soo orday oo iyadoo qurjujumtay baa loo yimid waa la aasay markii la aasay baa gurigii layga saaray subaxdii dambaan iska soo qureec doonta islaantaydii markaasay tidhi iimaanka alla kaa qaad ma waxaad xalay samaysay baad aniga qureec iga rabtaa war soo imaan laawi hooyadii dilay ma tid naa maxaad leedahay markaa wuu quman yahay naa maxaad leedahay hooyadaabaad xalay dishay seenu dilay hooyaday anigu xalay maba aragay war ma inaad hooyada xalay dab ku riday baadan ogeyn oo intaad god ku riday weliba aad afka kaga dabooshay dhuxulaho ololaya ood foorno ku shiday xalay hooyada ma ogi buuri halkaa markaan marayay baan baraarugay buuri marka waxa i gaadhay markaasaan gartay
markaasaan dadkii iyo addoomaha oo dhan ka cararoon isiri bal ilaahay caabudo bal inaad hadda soo noqon karta isku day 39 jeer markaan xajiyey yaa imaamka la odhan jiray Malik ibn Dinar ee taqiga ahaa caabidka ahaa maxaan ku dhahdaa salafkii ummadda ka midka ahaa Malik ibn Dinar baa xajka yimid xajka markuu yimid buu iyadoo Carafa la taagan yahay buu ilaahay aad u bariyay markuu ilaahay aad u bariyay baa wuxuu ku riyooday iyadoo haatuf la hadlayo qalbigiisa lagu soo riday inta ruux riyo ugu yimid baa wuxuu ku yiri dadka halkan taagan oo dhan ilaahay wuu dhaafay ilaa qof mooyee intaan naxay baan booday oo isiri buuri malaha dee waaba adiga alla ilaahu keligay maanta ka uuna si daran hayga dhigeen waan ordayo waan cibaadaystay oo waan dadaalay bis haddana intaan daalay bay lulma uun sidii oo kale geedkii hoostiisa igu soo dhacday waxaa la yidhi ninka la yidhaahdo Abu Ahmed Harun al-Khurasani ninka mooyee dadka inta kale maanta joogta rabbi waa u dhaafay waa maalinta ilaahay ducada bani aadamka oo dhan aqbala way wuxuu yidhi waan soo orday waan raadiyey waree Khuraasaan bicsadoodii halkay degan tahay qoladii xajka uga soo qayb gashay halkaasay degan yihiin waan u tagay waxaan idhi walaalayaalow Harun al-Khurasani tus markaasaa la yidhi Harun al-Khurasani miyaanu ku tusnaahaa waa ninka duqeehe cibaadaysanaya ooyaya salaada ku jira markaasaan ag fadhiistay salaadii markuu ka baxay yaan salaamay markaasuu igu yidhi Malik ibn Dinar baa tahay haa maxaa doonaysa bal ii waran markaasaan idhi buuri niyahow arrin la yaab laan arkay malaha dee shaydaan baa dhagahaygaga kaajay ninkaaga caabidka caynkaasa magiciisa intaan ku riyooday baa la igu yidhi ninkaa mooye ilaahay inta kaloo dhan waa aqbalay acmaashooda soo garan maysid ka waran markaasuu intuu saa ii soo egay igu yidhi waa nasiib darro aan qabo oo 39 jeer oo maanta ka horreysay baan halkan imid oo 39kii jeerba Carafa ruux baa intuu ii yimid igu yidhi adiga ilaahay kuma dhaafin oo waan kugu riyo waa markii afartanaad buu yidhi Malik waxa dhamaystiraysaa markaasuu bilaabay inuu ducaysto yiraahdo ilaahay hadadan adigu ii dhaafin yaa kale ii dhaaf inuu ilaahay u tabarruco aad isu bihiyo aad u ilmeeyo ilaahay oo gaftaasi way iga dhacday aan jahlin ba igaga dhacday cilmi la'aan ba igaga dhacday ilaahu hooyaday waxaan ku sameeyay kii isaga maana ahayn laakiin sababta ana lahaa waxa weeye Malik ibn Dinar wuxuu yiri markaan isagii ka noqdoon muddo joogay maalmihii lagu jiray ayaamu tashriiq habeenkoodii habeen kamida oon mina u hoyday baan haddana riyoodo la igu yiri Ibrahim Harun al-Khurasani ilaahay waa u dhaaf waxa weeye xumaanta dambiga horta dambigu ku dhiiba laakiin Abdullah ibn Abbas wuxuu ku tagay qofkii qof dila ilaahay agti toobad ma laha Soomaalian garan wuxuu yiri u heli mahayo waxaan ku fasiro khalidan fiha wa ku waaraya macnaheedu waarid aan ahayn inuu waligi ku jirayo hadduu toobad leeyahay ilaahay khalidan ma yiraahdeen buu Abdullah ibn Abbas